kusoo dhawaada asxaabta mar kale iyo barnaamijkeenii electronicska maanta wuxuu ku saabsan yahay barnaamijkeena receiver IR receiver iyo IR transmitter. LED-gan iriska ayaa wuxuu sii dayn doonaa iftiinkaas uu sii daayo ayaa waxaa arki doona LED-gan kaleeto, kadibna wuxuu active gareyn doonaa transistorkan, kabacdina transistorkan ayaa wuxuu dab siin doonaa LED-gan kaleeto, sidaas ayaana LED-gan ku shidmi doonaa. barnaamijkana waa barnaamij aad iyo aad u muhiim ah, ardayda electronicska baratana aad ayuu u anfacayaa, kuwa ku shaqeeya ama barnaamijyada electronicska dhisa projectyadooda ayagana aad ayuu u anfici doonaa. waxbayaan kusii dheeraanin, barnaamijkan gudaha usii geli doonaa. LED-yaashan waxay leeyihiin laba lugood, labada lugood way kala dheer yihiin. midka dheer waa positive-ka ama pluska, kan gaabanna waa negative-ka. kanna waa sidoo kaleeto laba lugood ayuu leeyahay, kan ayaa dheer xagga soo xiga, kanna waa gaaban yahay, waa negative iyo positive ay kale. LED-gan iftiinka uu sii daayo isheena bini aadamka ma arki karto, sida darteed camerada waa arki kartaa, laakiin isheena caadiga ma ku arki karno. LED-gan wuxuu la madow yahay, plastic cap ayaa la geliyay, waxaa lagu talagalay in uusan u shaqeynin si qaldan oo iftiinka caadiga uusan dhex gelin, macnaha iftiinka leerkan kasoo baxa uu dhex maro LED-ga, kadibna uu dab siiyo transistorka ama wixii kaleeto oo markaas aa u baahneed inaad ku shaqaysatid. waxaan guda gelaynaa qaabkii aanu dhisi lahayn. boorkan wax shaqaa kuma laha barnaamijka aan dhisi doono, laakiin waxaan ka qaadana oo keliya 5 voltage iyo negative-ka, macnaha positive iyo negative-ka dabka keliya ayaan ka qaadanaynaa inta. sidaas darteed kan nama quseeyo maanta waxaana waa electronics oo keliya. marka hadda waxaan bilaabi doonaa in aan xirxiro oo dhigdhigo resistorada iyo LED-yaasha, kadibna aan projectiga dhammaystiran idin tuso. waxaan ka bilaabi doonaa dhinacan, waxaan dhigi doonaa resistorka positive 5 voltage ayaan resistorkan dhex mariyay, kadib meeshaan ayaan iska dhigtay, kadib waxaan ku xiray LED-gan oo positive-ka negative-ka ayaan xaggan xijin doonaa, positive-kana waxaan xijin doonaa lugtii kaleeto ee resistorka. waxaan sameeyey lug waxaan kula xiray resistorka, lugtii kaleetana waxaan ku xiray adaa arki kartiin lug 5 voltage ee positive railka ayaan ku xiray, waa dhankan. lugna waxaan ku xiray resistorkan ayaan isku meelgeliyay si dabka markuu inta kasoo baxo, no waa qalday, negative-ka ayaan ku xiray, waa sax. si dabka markuu inta kasoo baxo positive side-ka resistorka ayuu soo raacay, LED-ga ayuu dabkii siiyey, kadibna ground ayuu ku laabtay. sidaas darteed macnaheeda LED-gan always wuu iska shidan yahay, had iyo jeerba wuu iska shidan yahay. LED-ga ayaan xoogaa qalloocinayaa si aan uga dhigo in uu iftiinka dhankaas u rido. haddana waxaan xiri doonaa LED-gii heli lahaa iftiinka, waana midkaan hadda aan gacanta ku hayo, isaga ayaan isna xiri doonaa. isna waxaan sameyn doonaa dhankiisa positive-ka ah, isna waxaan xiri doonaa, waxaan sameyn doonaa sorry camerada ku dhacay, isna waxaan sameyn doonaa 5 voltage ayaa waxaan ka qaadan doonaa, waxaan gelin doonaa resistorka, meel cidlaa ayaan iska dhigan doonaa, kadib waxaan ku xiri doonaa, isaga ayaan ku xiri doonaa LED-ga haddii aan jileeciyo 5 voltage
kadib waxaan ku xiri doonaa LED-ga. LED-ga ku xiri doonaa. Waa isku dhaweeyey. maadaama isku dhaweeyey kan ayaan fogeysan doonaa. kan ayaan meel cidla dhigtay, meel xoogaa ka fog. kadibna LED-ga ayaan ku xiray. kana meel cidla ayaan dhigtay lugtiisa kale. ujeedka waxaan ka wadaa in haddii warqadan aan dhex geliyo aysan iftiinku u gudbin LED-gan kale, kadibna uusan shaqeynin projectiga. markii aan ka bixiyana iftiinkaas uu u gudbo LED-gan, kadibna uu projectiga sidii la rabay u shaqeeyo. hadda waxaa dhacday LED-gan ayaa dabkii haysta, iftiinka ayuu sii daayay, kan kaleeto ayuu u gudbiyey, kan kaleeto asagana dabkii ayuu sii gudbinayaa, laakiin ma lahan meel uu usii gudbiyo, oo meel cidla ah ayuu dabka kusii daynayaa. sidaas darteed wuxuu u baahan yahay dabka wax kasii qaada inuu transistorkan sii active gareeyo. transistorkii ayaan dhignay meesha. transistorkan wuxuu sameynayaa wuxuu helayaa iftiinka kan kasoo baxa ayaa soo dhex maraya, kan ayaa wuxuu sii active gareyn doonaa baseka transistorka oo lugta dhexaad ee transistorka. markii lugta dhexaad ee transistorka uu dabku siiyo, transistorka wuxuu sameyn doonaa dabka ayuu sii gudbin doonaa, kadibna LED-gan yarkaa ah ayaa noo shidmi doona, isagana aan meeshaan ku xiri doono. aan sii sameeyo barnaamijka isagoo dhammaystiran ayaa arki doontiin. waxaan sameynaa marka transistorka laftirkiisa dab ayuu u baahan yahay, sidaas darteeda 5 voltage ayaa soo qaaday. waxaan ku xiray collectorka transistorka. 5 voltage ayaan soo qaaday dhankaas linekan 5 volt railka aan kasoo qaaday. waxaan ku xiray lugta saddexaad ee transistorka. waa lugahan ayuu leeyahay 3 lugood. lugtiisa saddexaad ayaan ku xiray. baseka dhan oo laga control on iyo off looga dhigi karo microcontrolka. transistorkana wuxuu ku xiran yahay photoresistorkan. photoresistorkan markuu iftiin arko, dabkii lugtaas kale uga imaaday ayuu sii gudbinayaa. wuxuu u gudbin doonaa baseka transistorkan. baseka transistorkan markuu gudbiyo, transistorkan isagana wuxuu sii gudbin doonaa dabka uga imaanaya collectorka ee lugtan dhinacan xigta ee transistorkan ku xiran yahay, taasoo ah 5 voltage ee resistorkan soo dhex marta ayaa collectorkaas imaan doonta. markii basekan uu on noqdo, 5 voltage ayaa gudbi doonta, lugtan emitter-ka loo yaqaano ayay imaan doontaa. lugtan emitter-ka loo yaqaano ayaan waxaan kusii xiri doonaa LED-ga aan u baahanahay in aan shidno. LED-ga lugta dheer waa positive-ka, lugta gaabanna waa negative-ka. lugta dheer ayaan meeshaas dhiganaynaa. lugta gaabanna waxaan rabnaa mustaqbalka inaan ku xirno positive-ka, negative-ka ground-ka. hadda haddii aan sidaan ugu xiro toos negative-ka, waxaa dhacayso 5 voltage ayaa dhex mari doonta LED-ga, kadibna wuu guban doonaa. sidaas darteed waxaan u baahanahay resistor aan ku xadido dabka soo dhex maraya LED-ga. resistorka ayaan hadda ku xirayaa. resistorka waxaan ku xiray dhanka negative-ka, kadibna LED-ga lugtii labaad ee negative-ka ayuu ku xiran yahay. sidaas ayuuna LED-ga hadda ku shidan yahay. haddii aan rabno inaan debino, waxaan sameyn doonaa dabkaran ayaan ka jaraynaa. waxaan ugu jaraynaa sidaan soo socda.
waxaan sameynaynaa haddii anta aan wax dhex geliyo LED wuu damay, haddaan ka bixiyo wuu shidmay, wuu damay, wuu shidmay, wuu damay, wuu shidmay. sidaas ayaa barnaamijkan u shaqeeyaa. LED-ga markuu dansiyaa waxaa malaysaa inuu shidan yahay, waana iftiinka kamerada kasoo baxaya. waa ka saama shidna, markaas uu shidan yahay, markaan uu dansan yahay, markaan uu shidan yahay. markaan wuxuu la shidan yahay LED-gan mar walbuu iska shidan yahay, isheena ma arki karto. iftiin ayuu sii dinayaa oo isheena aysan arki karin. iftiinkaas ayaa wuxuu shidi doonaa photo transistor. photo transistor wuxuu waxa uu marka uu iftiin arko ayuu wuxuu gudbinayaa lugtiisaan dhankaas xigta ee positive side-ka ah, dabka ku xiran oo 5 voltage ah ayuu gudbinayaa. wuxuuna u gudbin doonaa transistorka. markuu u gudbiyo, transistorkana waa isla isagoo kale kanoo kaleeto waaye. markuu baseka wax ka helo ayuu wuxuu gudbinayaa collectorka, lugtiisa collectorka ee 5 voltage ku xiran, dabka ku xirnaa ayuu sii gudbinayaa isna LED-ga ayuu gudbinayaa. sidaas ayaa LED-ga ku shidmaya. markii inta aan imaano oo aan dhexgeliyo warqadan, iftiinkii ma gudbi karo, warqadan ayaa celisay. sida darteeda kan waxdaba ma sii gudbinayo oo basekan waxdaba ma siinayo transistorka basekiisa. sidaas darteed transistorka isagana dabkii 5 voltage ahaa ma gudbinayo, maxaa yeelay basekiisa on ma ahan oo waxdaba ma helin. sidaas darteed transistorka wax dab ah ma siin doono LED-ga. sidaas ayuuna LED-ga off ku ahaanaya. marka aan ka bixino warqadan meesha, waxaa dhacaysa iftiinkii ayaa gudbi doona, kan ayuu shidi doonaa, kan 5 voltage ayuu gudbinayaa, transistorkan ayuu gudbinayaa, transistorka asna 5 voltage ayuu sii gudbinayaa, wuxuu u gudbinayaa LED-ga. sidaas ayaana LED-ga ku shidmaya. muhiimada loogu talagalay loo isticmaalo photo resistorkan iyo IR transmitterkan ama LED-gan iftiinka sii daynaya waxay tahay projectyaal badan ayaa lagu dhisaa, sida opticalka, in iftiinka wax lagu gudbin karo, tusaale ahaan meelaha albaab inuu xiran yahay oo kaleeto inuu furan yahay ayaa ku ogaan kartaa. haddii albaabku ay ku dhisnaa lahayd warqad saan oo kaleeto ah ama wax sidaan u kala xiraayo meeshaan oo iftiinkii kala celinaya, micnaheedu markaas in albaabka xiran yahay ayaa dareemi lahayd oo leerkan ayaa maqnaan lahaa, albaabku uu xiran yahay dhihi lahayd. haddii uu sidaan yahay albaabku waa furan yahay ayaa ku dareemi lahayd. waa tusaalaha ugu sahlan ama qaabka ugu sahlan oo loo isticmaalo. marka waxyaabo kala duwan iyo siyaabo kala duwan iyo qaabab kala duwan ayaa u isticmaali kartaa, laakiin muhiimadda waxay tahay sida ay u shaqeeyaan componentskan in aad fahantid. waana si aad iyo aad u sahlan, wax complicated ma ahan. labadan waa isku mid 3 lugood ayuu leeyahay, midna 2 lug ayuu leeyahay. kan 2 lug leh lugtiisa saddexaad waa meeshaan uu iftiinka ka arko. kan meels waxa uu ah meeshaan loo yaqaano baseka ee lugta dhexe ah ayuu asagana dabka ka helaa si uu u gudbiyo dabka asaga ku jiray. sidaas ayayna u shaqeeyaa barnaamijkan. wixii faahfaahin ah commentiska hoose ayaad ugu soo weydiin kartiin. meels ayaan uga hadli doonaa wixii su-aal ah ee ku saabsan cashirkan. aad iyo aad ay umahadsantihiin. intaas ayaan ku ekeeyey. See you next time.